macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal Arsene Wenger ayaa ka degay Liberia halkaas oo uu madaxweyne ka yahay George Weah oo ahaa ciyaaryahan hore ee kubadda cagta 51 sano jirkan oo loo doortay madaxweynaha Liberia bilooyin ka hor ayaa casuumay tobabarihii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal Arsene Wenger iyo sidoo kale tobabarihii hore ee xulka Faransiiska Claude Leroy si labadooda midkood abaalmarin loo siiyo. warbixintan waxaad kala socotaan Qaraaxa Tube fadlan subscribe channelkeena like saar una share garay asxaabtaada si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Leroy oo ahaa weeraryahan Cameroon sidoo kale 80meeyadii kubadda cagta wax badan ka maamulay ama ka soo ciyaaray ayaa hadda isaga iyo Arsene Wenger waxa ay la kulmeen George Weah ku guuleysta 3 jeer ee Premier League soona maray kooxda kubadda cagta Arsenal, Paris Saint-Germain iyo AC Milan oo dhawaan noqday madaxweynaha dalka Liberia sidoo kalena ah Afrikaanka kaliya ee heesta bilada Ballon d'Or-ka ayaa ugu talagalay Wenger inuu siiyo bilad gaar ah. Arsene Wenger oo 68 sano jir ah ayaa hadda ku sugan Afrika. Maalinta berrito ayaa la guddoonsiin doonaa abaalmarinta ugu qaalisan ee dalkaasi oo la siiyo shakhsiyaadka saameynta ku leh adduunka. Maruu ka hadlayay George Weah madaxweynaha Liberia abaalmarintaas iyo waxa uu ku muteystay Wenger waxa uu yiri marka laga hadlo abaalmarintan mudnaanteeda waxaa la siiyaa qof walba kaas oo xitaa aan waxba ka sameeynin gudaha dalka waxaa kaliya loo fiiriyaa saameynta uu ku leeyahay adduunyada. George Weah oo fahamsan heerka kubadda cagta uu ka joogo Arsene Wenger ayaa u gartay Wenger inuu siiyo biladaasi wuxuuna ku daray hadalkiisa nolosha marka aad fiiriso Wenger waxaa laga sameyn karaa film dhab ah maxaa yeelay waa waxaan la aamini karin xaqiiqdii waa shakhsi mudan wax walba adduunyada la bixiyo. George Weah ayaa ahaa ciyaaryahan 2003 sidoo kale xirfadiisa ciyaareed waxa uu inta badan ku qaatay ka soo hoos shaqeynta Arsene Wenger. dhawaan waxaa loo magacaabay madaxweynaha Liberia taasoo ka dhigan in kubadda cagta booskeeda uu u wareegtay dhanka siyaasadda.